kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kastoo aad inaga maqlaysaan waa subax isniina 13 bisha Agoosto sanada 2018 arrimahan barnaamijka saaka idinkugu haynana waxaa kamid ah dawladda Turkiga oo sheegtay inay dejisay qorshe ay ku xalinayso lacagteeda dadkii u soo baxay wareegii ugu dambeeyay ee doorashada madaxtinimada Maali oo la sheegayo inay tira ahaan aad u hooseeyeen dhalinyaro Muqdisho ka bilaabay in habeenkii ay wargeys soo saaraan maxaa ku dhaliyay magaalada aad bay habeenkii waxaan miran tahay goob badan oo ganacsi waxaa jira habeenkii bis la furo hoteelada aada loo fadhiyaa dadkaas oo dhan marka ma haystaan waxay isku madadaaliyaan marka waxaan dareemay inay tahay meeshaas suuq bannaan iyo haweeney sanado badan kadib ogaatay in lacag badan laga siiyey sawir gacan ku samaysa oo been abuura qodobadaas iyo kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan uu isku soo dubariday Cabdiraxmaan Xaaji Cabdo anigoo Cabdifaax Ibraahim Cageerna in la socodsiinay balse marka hore sida caadadeed barnaamijka waxaanu ku bilaabaynaa wararka caalamka Xasan Deeq Cabdullaahi Haybe mahadsanid Cabdifataax lacagta dalka Turkiga ee Iira ayuu mar kale soo food saaray cadaadis marka lagu sarifayo lacagaha qalaad inkastoo wasiirka maaliyadda ee dalkaas uu hadda sheegay inuu hayo qorshe uu ku dejinayo lacagta Iira ayaa soo kabatay markii uu hadalkaas yiri wasiirku balse haddana waxay bilowday in ay sii qiimo beesho wasiirka ayaa tallaabooyinka cusub ee uu wax uga qabanayo arrintaas ku dhawaaqi doona gelinka dambe ee Isniinta korjoogayaasha wareegii labaad ee doorashadii madaxweynenimada ee dalka Maali ayaa sheegay in dadka codadkooda dhiibtay ay aad u yaraayeen madaxweynaha talada haya Ibrahim Boubacar Keita ayaa la filayaa in uu markii labaad ku guuleysto balse waxaa laga yaabaa in ay 5 maalmood qaadato shaacinta natiijada kama dambaysta askarta ku sugan waqooyiga Nigeria ayaa ka gadooday qorshe lagu doonayay in mar kale lagaga howlgaliyo jiida hore ee dagaalka ka dhanka maleeshiyada Boko Haram ciidamada ayaa gadoodkooda ku muujiyay xabado ay korka u fureen dhowr saacadood waxayna diideen in ay raacaan diyaaradii qaadi lahayd qolyaha u arka in cadaanku uu dadka kale ka sareeyo iyo kuwa taageersan afkaarta garabka midig ee fog ayaa mudaharaad ku qabtay magaalada Washington DC balse dadkii isu soo baxay waxaa ka tira batay booliiska iyo dad kale oo ka soo horjeeday markii ay mudaharaadka wadeen 20 daqiiqo oo kaliya ayayna iska kala tageen ugu dambeynna kumanaan ruux oo u dhashay dalka Dominican Republic ayaa dhigay mudaharaad ay ku diidan yihiin isla xisaabtan la'aanta iyo musuqmaasuqa mudaharaadka loogu yeedho dibadbaxa cagaaran ayaa la bilaabay sanadkii hore kadib markii ay soo baxday in shirkad dhisme oo Brazil laga leeyahay ay laalushtay mas'uuliyiin u dhashay dalka Dominican warkii dunidana waa naga intaas Cabdifataax aad baad u mahadsan tahay Xasan Deeq Cabdullaahi Haybe ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka ugu door karoon halkaad kala socotaana waa BBC ee dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka aanu ku bilowna sida aad warkaba ku maqlayseen wasiirka maaliyadda waddanka Turkiga Berat Albayrak ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa uu dejiyay qorshe uu wax uga qabanayo qiimo dhaca ku socda lacagta qaranka ee liiraha Mr. Albayrak ayaa waxa uu oo ay u dhaxdo gabar uu dhalay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa waraysi uu siinayay wargeys dalkaasi ka soo baxa waxa uu ku sheegay in qorshahaasi uu dejin doono lacagta dalkaasi qorshahan ayaa waxa lagu sheegayaa in lagu caawin doono bangiyada iyo waliba ganacsiyada yaryar hase yeeshee dhanka kale xog kale oo dheeraad ah ayuu bixiyay hadaba faafahinta warkaasi waxa isku soo duway oo haatan studio igula soo biiray Cabdiraxmaan Xaaji Cabdo Cabdiraxmaan bayno waran cabdifatax oo qiimaha lacagta Turkiga ee liiraha waxaa ku timid hoos u dhac aad u weyn oo aan horey loo arag qiimo dhaca lacagta liiraha ku timidna waxay qayb ka tahay hoos u dhaca dhaqaale ee la soo darsay Turkiga hoos u dhaca lacagtana waxay saameysay maalgashiga ajaanibta ee dalka maalgashiga ka sameynayay iyo waliba ganacsiga dibadda dalkana sicir barar aad u xoogan ayay ku abuurtay haddaba wasiirka maaliyadda Turkiga Berat Albayrak ayaa wuxuu sheegay in la diyaariyay qorshe qiimo dhaca lacagtaasi ku timid wax laga qabanayo Isniinta gelinka dambana la shaacin doono ku dhawaad 10% ayuu liiraha hoos uga dhacay qiimaha lacagaha qalaad ama gaar ahaan doolarka lagu sarrifayay wakaaladda bangiga Turkigana waxay iclaamiyeen in la xadidayo sarrifka lacagaha qalaad ee bangiyada dalka hoos u dhaca lacagta liiraha maalgeliyaashu wuxuu ku abuuray walaac aad u weyn iyagoo markaa walaac ka muujiyay siduu noqon doono dhaqaalaha Turkiga dhinaca kale madaxweyne Erdogan oo magaalada Trabzon taageerayaashiisa kala hadlayay cunaqabataynka uu Mareykanka saaray ayaa wuxuu yiri tüm dünyaya ticaret savaşı açan
ve buna ülkemizi de dahil edene cevabımızı yeni pazarlara. jawaabta aan siinayno kuwa caalamka ka bilaabay dagaalka ganacsiga kuna soo qaaday dalkeenna ayaa ah inaan raadsan doono suuq hor leh iyo xulafo cusub bal eeg waxay canshuurta ku kordhiyeen birta waxaan ka mid nahay ururka ganacsiga adduunka waxa socdana kama mid aha shuruucda ururkaasi ma aha arrin go'aan laga gaari karo ayadoo aan lagala tashan dadka ay khusayso sidaana loogu qasbi karo Ben yaptım oldu mantığıyla böyle bir şey olamaz. waxa uu ahaa madaxweynaha waddanka turkiga Recep Tayyip Erdogan marka cabdiraxmaan maxaa keenay in liiruhu uu sidaas hoos ugu dhaco cabdifataxow khubarada dhaqaalaha waxay u sababeeyeen arrimo dhowra ay ka mid yihiin hoos u dhaca ku yimid qiimaha lacagta liiraha dhibaatada dhaqaale ee dalkaasi turkiga haysata suuqa saamiyada turkiga oo boqolkiiba 17 hoos u dhacay baahida dhinaca deymaha turkiga oo boqolkiiba 18 kor u kacday muddo sanad gudihii qiimahaas oo qiimo aad u badan lagu tilmaamay xagga sicir bararka sidoo kale sicir bararkana boqolkiiba 15 ayuu gaaray waa cadadkii ugu badnaa bay yidhaahdeen khubaradu turkiga in muddo ah maalgeliyaasha dalka gudihiisa iyo lacagaha ay amaahdaana waxaa lagu qasbay in ay dollar iyo euro ay ku celiyaan lacagii ay amaahdeen iyagoo marka hore ku amaahanayeen liire halkaasna qiimaha isbedelku dhibaato ku keenayo xiriirka u dhexeeya maraykanka iyo turkiga oo sii xumaaday maraykanka oo canshuur dheeraad ah saaray biraha iyo aluminiumka turkiga dalkiisa ka soo galo iyo cabdifatax ugu dambeyntii waxay khubarad markaa kusoo gabagabeeyeen cunaqabateyno uu maraykanka saaray turkiga oo ugu dambeysay cunaqabateynkii toddobaadkii hore uu saaray wasiirka cadaaladda iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi turkiga iyadoo lala xiriiriyey ismaandhaafkii baadarigii ay turkiga gacanta ku hayeen aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan xaaji cadow ayuu kaasi ahaa oo faahfaahinta warkaasi turkiga ku saabsanaya lacagtiisa liiraha ay nala socodsiinaya halkaad kala socotaanna waa b b c markanse korjoogayaasha doorashada dalka maali ayaa waxa ay sheegayaan in ay u muuqato in dadkii axadda u soo baxay ee wareeggii ugu dambeeyey ee doorashada madaxtinimada maali ay tiro ahaan aad u hooseeyeen koox maxalli ah oo ka mid ahayd korjoogayaasha ayaa waxa oo lagu magacaabo POCIM ayaa waxay sheegaysaa in wax ka yar 4 meelood oo meel ay suuragal tahay in doorashadaasi ay ka qayb qaataan oo usoo baxeen kooxda ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in maalintii codbixinta ay socotay ay jireen xiisado oo weliba waxaa intaasi ku dartay in rag hubaysan ay weerareen goobo ay dadka codkooda ku dhiibanayeen halkaas oo lagu dilay mid ka mid ah howlwadeenada doorashada hase yeeshee madaxweyne Ibrahim Babakar Keita oo kaasoo la filayay inuu mar labaad ku guuleysto doorashada ayaa gaashaanka waxa u daruuray eedaha mucaaradka ay sheegaya inay jireen wax isdabamarin haddaba Kadre Ouedraogo oo ka mid ah korjoogayaasha ururka ECOWAS ayaa faahfaahinta soo socota waxa uu siiyey wariyaasha Je pense que c'est des insuffisances techniques que nous avons constatées. waxaan aragnay cilado u badan dhanka farsamada inkastoo aan xilligan sheegi karin inay ahaayeen kuwo si ula kac ah u dhacay iyo in kale dhibaatooyinkaasi oo kale ayaan aragnay wareeggii koowaad waana ka hadalnay waxaa wanaagsan in ciladaha noocaasi ah la ogeysiiyo guddiga doorashada si uu wax uga qabto ilaa iyo hadda waxaana soo gaaray warbixinno kooban oo ku aadan hannaanka doorashada waxaan u baahannahay inaan warbixinno dheeraada ka helno korjoogayaasha si aan go'aan buuxa uga gaarno saamaynta ay ciladaha si farsamo ku yeesheen natiijada Mr. Ouedraogo ayaa sidoo kale waxa uu tacsi u diray dadka ay saameeyeen qulqulatooyinka xiriirka la lahaa doorashada Oui, effectivement, des nouvelles nous sont parvenues de cet incident. waxaana soo gaaray dhacdooyin laga xumaado waxaynala tahay in loo baahan yahay in doorashada ay noqoto mid khiyaari ah marka waa wax laga xumaado inay dhacaan falalkaasi oo kale waxaan tacsi u diraynaa dhammaan ehelada dadka ku waxyeeloobay rabshadahaasi Condoléances bien sûr à toutes les familles concernées par cet incident. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba saacaduna haatan waxay tilmaamaysaa 7:10 warbixinada inoo soo socdana waxaa ka mid ah garoomada Hargeysa ku yaal oo dhalinyaro badan ay ku soo badanayaan inay kubadda cagta ku dheelaan warbixin ayaanu idinkaga haynaa balse markan koox dhalinyaro ah oo isugu tagtay ayaa waxay isugu tageen magaalada Muqdisho si ay u sameeyaan wargeys habeenkii halkaas ka soo baxa oo waliba bilaash ah oo dadka magaalada ay u qaybiyaan wargeyska oo lagu magac daray Muqdisho Evening Post ayaa waxay dhalinyarada soo saarta ku sheegeen inay uga gol leeyihiin inay ku madadaaliyaan dadka soo badanaya ee habeenkii magaalada ku caweeya ama ku ganacsada mowduucyo kala gedisanna waa ay kaga hadlaan wargeyskaasi haddaba Cabdullaahi Cismaan Faarax waa agaasimaha wargeyskaasi sababta ku dhalisay inay wargeyskan soo saaraan xilliga habeenka waliba ayaan ku wareysanay oo waxa wareysatay wariyahayaga Farsamo Maxamed Cilmi oo marka hore weydiisay ujeedada ka dambeysa
in wargeyskan ay habeen soo saaraan? ujeedada wargeyskan loo aasaasay waxay tahay sida aad la socoto Soomaaliya waxay ku jirtaa marxalad soo kabasho ah gaar ahaan magaalada Muqdisho. magaalada markii hore waxay ahayd magaalaha maalinta uun shaqeyso habeenkii aan shaqeynin, laakiin hadda isbedel badan taas ku dhacay oo magaalada aad bay habeenkii u camiran tahay. goob badan oo ganacsi waxaa jira habeenkii bis la furo, hoteelada aadaa loo fadhiyaa. dadkaas oo dhan marka ma haystaan waxay isku madadaaliyaan, ma haystaan meel ay akhbaaraadka kala socdaan, telefishinna ma hor yaalaan intooda badan. marka waxaan dareen inay tahay meeshaas suuq banaan, dadkuna u baahnaana inay habeenkii wax akristaan sida adduunyadaba ay u jiraan wargeysya fiidkii soo baxa oo kale. kanina wuxuu lamid yahay kuwaas waa wargeys habeenkii soo baxa. waxyaabaha uu wargeysyada waddanka soo baxa oo kale uga duwan yahay waxaa kamid ah inuu yahay wargeys bilaash ah oo qofka uusan lacag ku dhiibeynin haddii uu akhrisanayo haddii uu qaadanayo intaba. imise koobi ayaad soo saartaan habeen walba oo aad magaalada u qaybisaan? wargeysku wuxuu bilowday horta 8 bishan August, habeen walbana wuu soo baxaa marka habeenka Jimcada oo Sabtiga soo galaysa laga reebo. halkii habeen waxaan sameynaa 700 ilaa 800 koobi, laakiin waxaan rajeynaynaa insha Allah bilaa soo aadan in 2,000 koobi aan sameynaa habeen walba. Cabdallah, waxaad ka dhawaajisay xaaladda magaalada Muqdisho in ay soo kabanayso si gaar ahna markii loo fiiriyo amniga wali caqabado ayaa jiro. marka maxaad habeen si gaar ah ugu doorateen in wargeyskan uu u shaqeeyo? waxyaabaha aan rabno inay ka turjumaan inay magaaladu isbedelaysa ayuu horta wargeyskan ka mid yahay oo lagu muujinayo inay caasimada isbedesho, nabadna hadda ay jirto. waa runta midara way jirtaa, laakiin marka la fiiriyo fursano kahor iyo sida hadda ay tahay farqiyaa jira. mar kastaba marka ka dambeeya caasimada iyo nabadeeda way soo hagaagaysaa. marka isbedelka habeenkii oo magaalada ka dhacay oo magaaladan 4 sano 5 sano kahor sida hadda ay habeenkii tahay ma ahaan jirin. ganacsatadu sida hadda wax u iibsadaan uma iibsan jirin. dadkuna siday habeenkii hadda usoo baxaan oo banaanka u fadhiyaan oo goobaha ganacsiga ugu shaacayaan ma samayn jirin. marka maadaama dadkiina ay soo baxeen, ganacsatadina ay ku dhiiradeen inay habeenkii wax iibiyaan, annagana waxaa ku qasbanaan habeenkii inaan keenno joornaal noocaana. joornaal bilaash ah oo siyaasadda iyo arrimo kale oo badan aad uga hadashaan. waxaa la isdhihi karaa yaa maalgeliya? runtii horta waxaa sameeyey rag saxafiyiina iyo rag macalimiina. maalgelin caalamiyana ma haysto, laakiin sida aad la socoto adduunka waxaa jira wargeysyo bilaash lagu akristo. ingiriiska oo kale medra jirta oo aan wax lacaga lagu akrisanin. wargeysyadaas inta ugu badan waxay wax ka faa'iidaan ganacsatada. marka wargeyskan xooggiisa wuxuu la falgeli doonaa ganacsatada magaalada Muqdisho, sababtoo waa wargeys weyn oo dhammaantiis wada kalara oo qofka ganacsada u furanta inuu wixiisa ku xayisiisto. adduunkana waa ogtahay inta ugu badan wargeysyada aada loosugu xayisiiyaa. sidaa darteed waxaan qorsheysanay inaanu macaamiisha akhrisanaysa joornaalka waxba laga qaadin si ganacsatada ay ugu fududaato in messajkeeda uu meel walba gaaro. haatan iyadoo ay jiraan baraha bulshada oo qofkii war doonaya uu wararka si sahal ah uga heli karo baraha bulshada iyo website-yada, marka aad habeenkii wargeys lasoo qoray magaalada aad geysaan iyo hoteelada, soo dad badan isma oran karaan xiise badan ma sameynayo oo wararkan mar hore ayuu qofku soo akhristay? runtii facebookyada iyo baraha bulshada iyo websayada waxyaabaha ku qoran waxaan rajeynaa inaan aada uga dharagsan tahay waa akhbaar, laakiin annaga inta ugu badan foxkeena akhbaar bismaahan. waxaan inta badan diiradda saarnaa in la taxliiliyo xogaha qarsoon ee inta badan aan heli karin dadka caadiga ah, in waxaan la qiimeeyo meesha ay kasoo bilowdeen, meesha ay ku socdaan iyo waxa laga rajeyn kara mustaqbalka. ma jiraan ilaa iyo haatan wax caqabado ah oo idinka hor yimaaday intii aad ku howlaneedeen soo saarista wargeyskan iyo howlgelintiisaba? caqabada way iska imaanaya marka aragtid inaa bulsho kale aragti duwan wax u sheegtid. soomaalida hadda xilligan lagu jiro weliba siyaasadda aad bay xasaasi u tahay. waa laga yaabaa qof inuu ku dhaho niyo arrintan aa qortay oo kale, ama siyaasi saxiibka gaar u taabanaya ama anay gaari taabaneen, ama inuu qof siyaasi kula soo xiriira way dhici kartaa. ilaa hadda culeysyo waaweyn maana adag, laakiin way jiraan dad hal iyo laba oo dareemaya waxyaabihii aan soo qorna qaar in iyaga ay si gaara u taabanayaan aysana ka helin sida sheekadooda loo dhigay. cabdulaahi cismaan faarax, agaasimaha wargeyskaasi Muqdisho Evening Post ayuu kaasi ahaa. ugu waramayay waryahayaga Fatuuso Maxamed Cilmi. Facebook ay dhegeystayaal ra'yigooda kaga soo dhiibteen. Maxamed Cawil Axmed oo Boosaaso jooga wuxuu leeyahay dhalinyarada reer Muqdisho aad ayaan u bogaadinayaa in ay isku howlaan in ay habeenkii soo saaraan wargeys, waayo wargeyska iyo joornaaladu waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu fudud ee saxaafadda la akhrin karo si dhib yarna, waxaanan dhalinyaradaasi laga rabaa in ay barnaamijkaasi sii ballaariyaan si ay bulshada kale uga faa'iidaysato ayna u noqoto mid xalgal ah. saxardiid xaashi ardaale oo jooga magaalada Bowram wuxuu leeyahay dhalinyaradaasi Muqdisho ka bilowday inay wargeys soo saaraan habeenkii
waxa ay sameeyeen arrin cajiiba balse ay lama ahaan inay heli doonaan dhaqaale ay ku sii wadaan wargeyskooda habeenkii ay soo saaraan. waxaa qaar ka mid ah dhegeystayaasha b b c ee facebook dhegeystayaal idinkuna raayigin waad kasoo dhiiban kartaan warbixin dhawaanta halkaasi ku daawacna halkaad nagala socotaanna waa b b c saacaduna haatan waxay tilmaamaysaa 7 aroornimo iyo 15 daqiiqo iyo 55 ilbiriqsi. ciyaarihii ayaa inoo soo socday iyo weliba sheekooyin kale oo xiiso badan balse markan dhowr kun oo qof oo dibadbaxayaal ayaa xalay waxay isugu soo baxeen bartamaha magaalada caasimadda waa dalka Romania ee Bucharest. waa habeenkii saddexaad ee xiriir ah oo ay dibadbaxayaashu dhigayaan soo bax ay kaga cabanayaan ama kaga soo horjeedaan musuqmaasuqa. dadkan ayaa waxay isugu soo baxeen afafka hore ee dhismooyinka dowladda ee ku yaal fagaaraha Victory waxayna dalbanayaan in xilka ay banayso xukuumadda uu horkacayo xisbiga bidix dhexe. tifadaraha BBC ee wararka Yurub Dani Abahad ayaa warbixintan inoo diyaariyay waa kan Cabdiraxmaan Xaaji Cabdi oo soo jeedinaya. waa arrin muujinaysa inay ruuxanayso Rumaaniya dibadbaxyada ballaaran si ay uga qayb qaataan cadhadoodan ay u muujiyaan waxaa dalka ku soo qulqulaya qurbajoog tiro badan oo u dhashay dalka Rumaaniya. cadhada shacabka ayaa waxay timid kadib markii uu hoggaanka xisbiga Social Democrat uu xilka ka qaaday madaxa xeerlaaliyaha ka hortagga musuqmaasuqa ee dalka Laura Kodruta-Kovesi. xeerlaaliyaha waxaa lagu soo eedeeyey in ay u dhaqantay si awooddeeda ka baxsan sawirka dalkana ay waxyeelaysay iyadoo la sheegay inay baaritaanadeeda si gaar ah ugu bartilmaameedsanaysay xubno ka mid ah siyaasiyiinta iyo ganacsatada dalka ugu waaweyn. muddada ay xilka haysayna waxaa kordhay tirada xukunka dhacaya iyadoo tallaabadaasina midowda Yurub uu ku ammaanay. gudoomiyaha xisbiga midigta dhexe Klaus Lohanis wuxuu isku dayay xilka qaadista xeerlaaliyaha inuu ka hortago balse ugu dambayntiina bishii Julaay ayuu saxeexay in xeerlaaliyaha xilka laga qaado isagoo sheegay in looga hanjabay haddii uu saxiixi waayo in la dilayo. sanadkii hore isku day uu sameeyey xisbiga talada haya inuu meel mariyo amar ah in falalka musuqmaasuqa qaarkii aan dembi laga soo qaadin taasoo keentay mudaharaadyo ballaaran inay dhacaan ilaa ay dhacdo dowladdii shuuciyadda ee 1989. boqolaal kun oo shacab ayaa waddooyinka dalkaasi isugu soo baxay iyagoo si aad ah uga cadhooday hogaamiyaha xisbiga Social Democrat Livi Dragnia ay u arkaan inuu shakhsi ahaan uu tallaabadaasi ay faa'iido u tahay xisbigiisuna uu taageeray. hase yeeshee tan iyo markii ay ku dhaqaaqeen inay isbedello dalka ka sameeyaan waxay cambaareen weyn kala kulmeen xeerka ciqaabta ee hoos u dhigeen iyaga oo weliba ku hanjabay inay faragelinayaan madax bannaanida laamaha garsoorka. baaritaan ay samaysay kooxda arrintani u ololaysa oo la yidhaahdo Transparency International waxay sheegeen in ay Rumaaniya ka mid tahay 4 dal ee ugu musuqmaasuqa badan wadamada ka tirsan midowda Yurub iyaga oo sheegay inay Rumaaniya ka sii liitaan oo keliya wadamada Hungary iyo Bulgaria. ka qaybgal barnaamijyada laanta af Soomaaliga ee BBC oo noogu soo dir fikradaada ama aragtidaadu waxa ay tahay text message telefonka nambarkiisu yahay 4477862000 kadib waxa ay kula tahay BBC Soomaali. waa tahay sheekadii xiisaha badnayd ee haweeneydii sanado badan kadib ogaatay in lacag fara badan laga siiyo sawir gacan ku samaysa oo been abuur ayaa inoo soo soctay sheeko kale weliba balse markan ciyaarihii aanu eegno kooxda Manchester City ayaa waxay ku bilowday horyaalka Ingiriiska guul ay ka gaartay kooxda Arsenal oo martay garoonkeeda ay ugu ahayd oo 2-0 ay kaga adkaatay. sidaan waxa ay Man City ku muujisay inay difaacanayso koobka ay ku guuleystay xagaagii hore. Raheem Sterling iyo Bernardo Silva ayaa labada gool u kala dhaliyay. goortii horeysayna kooxda Liverpool ayaa waxay cadeysay in sanadkan aanay meelna uga socon horyaalkaasi oo ay doonayso inay ku guuleysato 4-0 kaga adkaatay kooxda West Ham United oo garoonkeeda Anfield martii ugu ahayd. Sadio Mane ayaa laba gool oo kamid ah u dhaliyay. Southampton iyo Burnley waxay ku kala baxeen eber. dhan kale magaalada Hargeysa waxaa ka jira garoomo dhowr ah oo ku yaala xaafadaha ay dhalinyaradu ku ciyaaraan kubadda cagta dad badanna ay u soo daawasho tagaan. dhalinyarada ayaa isugu jira qaar doonaya in ay heer ka gaaraan kubadda cagta oo ay noqdaan xirfadlayaal lagu qadariyo kubadda cagta halkaana ay ku biiraan kooxaha waaweyn halka ay jiraan kuwa kale oo jirdhisun meesha u taga. waryaha BBC Hargeysa Axmed Saciidige ayaa tagay mid kamid ah garoomadaasi xilli waliba ay ciyaar socotay kadibna warbixintan ayuu inooga diyaariyay. garoomada Hargeysa waxaa jira dhalinyaro ku ciyaarta oo kubadda cagta gaar ahaan marka koox dhalinyaro baan dhex jiray magacaaga daadaada maxamed amiin sajaal dawjir ma intee lag bad ciyaarsi kubadda wallahi min 5 sano maalmood ciyaartay oo digan diidsan markay rurul ma ciyaareen ka kubadda cagta kaliya miyaa mise ciyaar kala ciyaarta ma kubadda cagta kaliya haye oo digan timaana sida u goostay marka war ciyaar caalamiga ma daawata hanta haye ku daawata Barcelona Barcelona ma ciyaartoy kala ku dayta marka may
haye ciyaartooyda man taageero haye ciyaartooy Soomaaliland oo kale aad ku daytaa ma jirtaa may haye nafteeda mooyaan ciyaartooyda ma dayo okay adna magacaaga waa Cabdullaahi Xasan haye waa kulleeyda wato garoon joognaa imka ku beddelan daadu ku dhawaad 4 sano ku soo jiray marka imta jir baad shirto jir hagaad doon sheeka gaadho marka ciyaarta kubadda cagta meel fiican insha Allah iskuul ma dhigataa waan dhigtaa haye iskuulka ma u ciyaarta marmar may iskuulka dee kulley marmar waa la ciyaaraa laakiin kuma badni xagana koox layn iskuulkaagu may ma aha waa kee iskuulku Nuruddin Schools Nuruddin Schools haye adna kabta ma tahay may magaca jaamus haye imsi jir baad anu ilaa ku ilaatmaan haye adigu waad weyntii haye intee lagu ciyaarta marka ilaa 8 sano meel ciyaari marka siirigaad haysay marka adigu may waa ciyaar intuu faaban ciyaari marka qaarkood siirigaad qabta marmar haday markaan fadhiyo siriyoon haya marka labada kooxood ciyaaraysa markay kala badiyaan inkoo kale halkan ku ciyaarayaan garoonkan maxay kala helayaan ilaa midna guul buu helay midna dawa laga guuleysanaya waa doctor ciyaaraha ka socda garoonka weyne Hargeysa Stadium oo kooxaha koowaad labaad saddexaad kuwa ma ku biiraysan hadhow marka halkan dhalinyaradiina aad ka soo dalacdaan insha Allah taala waa halkan higsanaba sibada horta kubadda cagta marka kubadda cagta waa bulwadii dadka ka ilaalisa cid ma ku daytaa marka adigu kooxaha waaweyn dalka mise ku dibada labadaba waan ku daydaa dalkana qaar baan ka daydaa dibada dalka hadda waxaan ka daydaa kale gujiyo kale haye dibadana waxaan ka daydaa kale ragga halkaa ku ciyaara waa kuwaba ilaa dee Sergio ragga halkaasna ka daydaa yuu ciyaara Sergio Real buu ciyaara Real Madrid imika arko koobkii Ingiriiska laga ciyaari jiray ayaa bilaabay la kuwarto ma daawado inta badan okay yaa kale okay adna magacaaga Mukhtaar Maxamed Ibi Mukhtaar imsi jir baad waxaan 17 intee lagu ciyaartay kubadda cagta ilaa 4 sano ciyaari haye iskuulkana waxaan hay form haye ma u ciyaartaa markaa iskuulka ma iskuulka ma ciyaarin laakiin markaan firaaqa haysto garoonkan imaada garoonka ku ciyaar bal ka war markaa kubadda cagta wallaahi aad bay u fiicantay ana waxaan doonaynaa heerka gaaro labada kooxood ciyaareen maxay yihiin kooxda dhalinyarada ciyaaraysa labadii waxa weeyaan kala xaafadaanay oo soo imanay markaan kala ciyaartaan markaa kolba maalmo midba badisa haye markaa doonaysa ka gaadho markaa kubadda heer inaan ka gaadhin doonaya oo hadhow toolana cagteeda aan lacag iyo wax walba ku qaato lacag badan ku gaadho iyo horumar yaad ku daytaa marka lacagtoodu qaaliga tahay adduunyadoo dhan qaar badan baan ku daydaa kuwa ma ii sheeg Maxamed Saalax iyo Maane iyo kuwaasaan ku daydaa kooxda Liverpool waa tahay dhegeystahaas taageera Liverpool ayaana u dambeeyay warbixintii waryaha BBC da Axmed Saciid Cige oo magaalada Hargeysa nooga soo diray sheekadii xiisaha badneed inoo sii rahmanaate haatan sheeko ka duwan warbixinadii aad soo maqasheen bal dhegeyste maxaa maskaxdaada ku soo dhacaya haddaan ku dhaho waxaan warbixin kaaga hayaa maqaaxida dhimashada waa sheeko cajiiba waa meel ay isugu yimaadaan dad badan oo waxay halkaas ku wada cabaan shaaha ama qaxwada kadibna waxay cunaan doorsho dhimashada ayayse kaga hadlaan maqaayad noocaasa waxaa laga furay magaalada Lagos ee waddanka Nigeria waxaa samaysay Hope Ogbologugo warbixinta BBC dana waxaa u diyaarisay haweeney la yiraahdo Mioni Jones waxaa soo jeedinaya Cabdulqaadir Yuusuf Cali when I told my dad I was going to start this markii aan u sheegay aabbahay inaan furanayo maqaayadan waxa uu igu yiri maxaad u furanaysaa marka waxaan isku dayay inaan u sharaxo waxa ay ku saabsan tahay waxaan u sheegay inay ku saabsan tahay in dhab ahaantii aan nolosheena si qurxoon uga faa'iidaysano kadibna waxa uu igu yiri laakiin maxaadan ugu magacaabin maqaayadda nolol wanaagga Good Living Cafe waxaa halkan ku sugan ilaa iyo 10 qof waxaanu ku dhex jirnaa qol yar oo ku yaala maqaayad ku taala jasiiradda Victoria waa maalin ay cadceedu kulushahay meel aan sidaa uga fogeyn halka aan ku sugannahay waxaa fadhiyo oo damaashaadaya dadka ku jira nolosha dabaqadda dhexe ee ku dhaqan magaalada Lagos balse haatan waxaan diiradda saaraynaa inaan ka hadalno arrimo ku saabsan geerida waxaan la hadlay abbaar 6 subaxnimo markay saacaddu ahayd 10:20 daqiiqo wiilkeeda ayaa soo wacay wuxuu u yiri way geeriyootay waxayna qabtay xanuun dhanka wadnaha ah waxaa igu dhacay qulub cabsidan iyo murugadan ayaana ah wax hooyaday ay qabtay waxay ahayd xaamil waxayna ku geeriyootay shil waan ogaa inay shil ku dhimanayso
waxaan doonayay inaan arko hooyaday inta aysan geeriyoon balse ma aysan dhicin kadibna waxaan aaday meel si aan biyo nadiif ah uga cabo waxaana maqlay dadka oo idhahaya taas miyaa gabadha hooyadeed dhimatay alla aad bay u yareed markii hooyadeed ay dhimanaysay hooyaday 37 sano jir ayay ahayd markii ay dhimanaysay maqaayadda geerida waxaa loogu talagalay in dadka ay kaga wada xaajoodaan fikradaha laga aaminsan yahay geerida kasoo qaybgalayaasha ayaa sheegaya inay adag tahay in la helo goob ay dadka si fiican uga wada xaajoodaan arrimaha geerida waxaan doonayay in aan awood u yeesho inaan ka hadlo mar uun sababtoo ah inta badan wakhtiga niyaddayda ayaan ku hayay haatan waxbaan ka qorayaa balse ma jiro qof aan kala sheekaysto arrinta geerida marka waxaad ogaanaysaa markii aad ka hadlayso geerida dadku inaysan kula wadaynin sheekada geerida aad bay uga baqayaan sida aan saaxiibkay u sheegay waxaan u sheegay inaan doonayo inaan aado maqaayadda geerida kadibna waxa uu igu yiri maxaad u aadaysaa halkaasi marka awood uma aanan yeelan in aan kala sii hadlo geerida ee qoraal ayaan ugu sheegay wixii aan rabay waana ka tegay qabanqaabiyaasha ayaa sheegaya in maqaayadda geerida ay dadka wacyigelin u samaynayso eena sidoo kale si wanaagsan ugu sharaxayso fikradaha geerida yomi igumbi waa mid ka mid ah kooxda qabanqaabiyaasha ee maqaayadan dhaqanka Afrika geeridu waa shay cabsi leh waa eray aan afka la soo marin karin sidaas daraaddeed waxay arrintani naga dhigaysaa mid cabsida naga bi'isa haddii aad dhowr jeer arrintani aad samayso waxa aad xaqiiqsanaysaa in dad badan ay geerida ka baqaan marka in laga hadlo geerida waxa ay meesha ka saaraysaa arrinta cabsida geerida laga qabo waxa aadna ogaanaysaa in qof waliba oo naga mid ah uu maalin dhimanayo waana dhimanaynaa dhammaanteen marka maxaan uga wada sheekaysanayn geerida maxay mustaqbalka higsanayaan kooxda in aan haysanno koox aad u ballaaran iyo in aan yeelanno laamo kale si aan u faafinno arrintan waxay keenaysaa in sheekadu ay sii socoto sidaas darteed waxaan isku dayaynaa kuna noolaanaynaa nolosha ugu wanaagsan halkii aan sii wadi lahayn marka aan gabowno sababtoo ah garan maysid marka aad tegi doontid sidaas darteed waa in la sii wadaa fikradda ah noolow noloshaada hadda kana faa'iidayso inteeda badan aad bay u mahadsan yihiin asxaabteenaas warbixintaasi inala socodsiinaysay markana sheekadii haweeneydii sanado badan ogaatay kadib in lacag fara badan laga siiyey sawir gacan ku samaysa haybe ayaa soo akhri haybe cabdifataaxow gabar la yidhaahda liimba sanadkii 2006 waxay siisatay sawir farshaxan oo gacan lagu sameeyey 165 kun oo geni oo u dhigantaa 210 kun oo doolar inka badan marka arrintiiba waxaa la leeyahay sawirkii aad haysatay intaas waxba kama jiraan goormay ogaatay marka sanadkii 2011 ayaa la soo saaray liiska ay ku qoran yihiin farshaxanada rasmiga ah ee wakhtiga dheer soo jiray balse iyada keedii laguma soo darin mar kadib maxay samaysay hadda waxay rabtaa baaritaan baa lagu haya waxay leedahay arrintan waxaan filayaa in muxuu ahaay xal laga gaaro waata aad baad mahadsantahay xasan haybe ayuu kaasi ahaa warbixintaasi nala socodsiinaya idaacaddiina waa naga intaas nabadgelyo